بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو جانالك وحكارد فضلا هداد نوغو عصوب تهاي جانالك سبسكرايب ده maanta waxaa idiin soo jeedin rabaa ama idiin hayaa toddobada dhacdo ee ugu yaabka badneed ee ka dhex dhacda Facebook dhexdiisa. Aan ku bilaabo number 1. Naag Facebook ka dhex ogaatay in ninka ay guursan rabtay oo khiyaano ku waday. Gabar u dhalatay magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga ayaa waxay Facebook ku aragtay sawirka ninka ay guursan rabtay oo naag kale la sawiran. Aad ayay u xanaaqday, arooskii ayayna cancel garaysay. Kadibna magaalada dhan ayay ku dhijisay warqad sawir ka muuqda iyo qoraal. Waxayna ku qortay qoraal sidaan ah: Ilaah baa mahad iska leh, meeshan Facebook ayaa jiro. Ugu yaraan waxaan ogaaday inaad tahay khaa'in khinsiir ah. Aniga waad iqiyaani rabtay iyo 548 marti ee arooskeena imaan lahaa. Odayga wax kale iska dhaaf, suuq xir xataa lagu sameeyay, sawiraantiisa la qeybi. Number 2. Nin iyo naag isku magac ah oo farantigeliskooda dhacay. Kelly Hildebrandt, magac ku adeeg badana, oo reer Texas ah ama ka soo jeeda gobolka Texas, iyo kan hore naag waaya, iyo Kelly Hildebrandt waa isla magacii oo nin ah oo asna ka soo jeeda gobolka Florida ayaa farantigeliskooda ama meherkooda dhacay. Gabar lagu magacaabo Kelly Hildebrandt ayaa waxay dhahday Facebook ayaa waxaan ka sirjigareeyay ama ka baaray qof aan isku magac nahay. Marka waxaan arkay wiilkan aan isku magac nahay, markaas sawirka u saarnaa ayaan fiiriyay, shaati ma uusan wadanin. Waan ka helay runtii, kadibna waan isbaranay 8 bil oo jacayl ah, kadibna farantigeliskeena ayaa dhacay. Waa sidii hadalka u dhigtay. Odayga nasiib u lahaa, anagana koolkana lagu dhageysanayo. Number 3. Naag laga jaray lacagihii macaashka ay ku heli jirtay Facebook dartiis. Nathalia Blanchard oo ka soo jeeda Quebec ayaa waxaa laga joojiyay lacag la siin jiray kadib sawiro ay soo gelisay Facebook. Naagtan ayaa waxa ay u shaqayn jirtay shirkadda IBM qaybteeda Bromont. Waxay sheegtay inay xanuunsan tahay, waxaana la siiyay fasax muddo bil ah. Lacagteedana way u socon jirtay, waxayna qaadanaysay lacagtii leave benefitska. Si walba ha ahaatee, waxaa la arkay sawiro ay Facebook soo gelisay oo caddaynaya inay naagtan fiican tahay, noloshana ku raaxaysanayso. Sawirada waxaa ka mid ahaa sida idiin muuqda sawir ay joogto xeebta iyo kuwa ay joogto xaflada dhalashadeeda ayadoo baashaalayso. Sidaa darteed ayaa waxaa la ogaaday in naagtan aysan xanuunsaneen oo ay fiican tahay, waana laga joojiyay lacagihii ay qaadan jirtay. Nathalia ayaa waxay sheegtay in sawiradan inaysan caddayn u ahayn xaaladda ay ku jirto, laakiinse ay yihiin sawiro iska caadi ah. Laakiinse shirkadda hadalkeeda ma aysan dhageysan oo waa laga joojiyay lacagtii. ayadaa suuq xir isku sameynaysa ka hor dabaalme. Number 4. Boosti ama hadal uu ku qoray Facebook ayuu uga badbaaday xabsiga. Nasiib badana. Rodney Bradford waa 19 sano jir degan Farragut Houses. Ma uusan filanayn in hadalka uu ku qoray Facebook dartiis uu xabsiga uga soo bixi doono. Hadalka uu ku qoray waxa uu ahaa aaway quraacdayda. Hadalkaas maalinta uu ku qoray Facebookiisa maalinta ku xigtay ayaa la xiray oo xabsi la geeyay asigoo lagu eedeynayo in uu wax xaday. Laakiin abukaatihiisa ayaa cadeeyay in xilliga wax xaditaanka ee Rodney lagu nabaayo inuu xilligaas joogay gurigiisa uuna ku jiray Facebook. Sidaas darteed ayuu wiilka xabsiga uga soo baxay. Hadka dambe la boosti bastadii wadaane. Boostiyaasha la badsado. Number 5. Naagtii ugu horeysay ee Facebook laga korfuro, yacni ayada Facebook ma la korfuriyaa, ayada Facebook laga dhex furo 3 dalqa lagu siiyay. Emma Brady ayaa waxay sheegtay in guurkeeda 6 sano soo jiray uu dhamaaday kadib markii ninkeeda Facebook uu kusoo boosti gareeyay inuu dhamaaday guurkii ka dhaxeeyay asaga iyo xaaskiisa. Emma ayaa arrinkan waxay ku ogaatay kadib markii ay soo wacday saaxiibadeed qaali ah oo Denmark joogta si ay u dejiso arrinkan naxdinta badan ee saaxiibadeed ku dhacay darteed, ayadoo weydiinaysay in xaaladeeda ay fiican tahay in kale. Emma markii ay Facebook gashay oo wax walba ay aragtay, aad ayay oo la yaabtay iyadoo dhahaysa wax walba aniga iyo ninkeyga Neil Brady naga dhaxeeya way fiicnaayeen, laakiin ma ogi sababta keentay furitaankan. Odayga wax garad u ahaa, naag kastaas lagu sameeyo. Number 6. Nin aroos ahaa oo Facebook aan hilmaamin xitaa xilliga arooska uu kaniisadda ka dhacay. Dana Hana ayaa ka codsaday odaygii baadariga ahaa markuu arooska dhameeyay in asaga iyo gabadha uu guursaday ay Facebookooda iyo Twitterkooda ay ku qortaan married, halka awal hore ay uga qorneyd single. isla markiina labadii is aroosay telefono ay la soo baxeen oo waxay jaanji gareeyeen ama bedeleen xaaladooda xiriir ama guur
Facebook iyo Twitter waxayna ku qorteen Marriott. odayga wax kale uu ka fekeray anigu dhahaa. Number 7 nin dhalinyaro ah oo dadka ka yaabsaday laakiin isagana ay ka yaabsadeen. nin dhalinyaro ah oo u dhashay wadanka Ecuador. kaalaan waaba yaabay wadamo cusub adduunka lagu soo kordhiyay. Ecuador weligii ma oran xataa. si kasta ha ahaatee ninkan wuxuu u dhashay wadanka Ecuador ayaa waxa uu sameeyay Facebook group magaciisa yahay If I Get 100 million magaciisa hoos uu nigu qoran yahay oo micnaheedu yahay aniga Jose Romero ahaan haddii aan helo 1 milyan qof waxaan dhabarkayga shaabad ahaan camal ugu sawiraa 151 Bogman ama tattoo yacni dadka waxay jirkooda ku sawiraan waxaa ku sawiraa 151 Bogman. yacni Bogman waa kaartoon caan ah oo la daawado. kadib wiilkaas markii uu sameeyay page-ka ma uusan filayn wixii dhici doona 24 saac gudahood. 24 saac gudahood groupka waxaa soo galay 50,000 oo qof adduunka daafihiisa ka imaaday. ninkan markii uu arkay dadkan dhan oo groupka soo galeen waxa uu qariyay profile-kiisa si aysan u aqoonsan ama qof dhan uusan u fahmin. isla markiina dadkii groupka ku jiray markii ay waayeen ninka sameeyay groupka way xanaaqeen waxaana sameeyeen group kale oo lagu raadinayo qaa'inka sidaas sameeyay. groupkaas dambe ee ninkaas lagu raadinayo waxaa soo galay 600,000 oo qof. dadka tuugada jeclaayaga fadlan igu caawi waxaad awoodo aan kugu caawiyo waxaan awoodo. waad awoodaa inaad channelka subscribe dhahdo haddaad ka heshay videogana aa like siiso. ana waxaan kugu caawin doonaa waxa Instagram-kayga ah insha Allah. aad ayaad u mahadsantihiin.